wasiirka qorsheynta ee Puntland Cabdiqafaar Xange mashruucan muhiimad intee leeg ayaa ku soo koobi kartaa Puntland muhiimada weyn buu leeyahay mashruucan wuxuu la xiriiraa maamulida xogta ku saabsan biyaha iyo dhulka iyo macdanta waa garan kartaa xogtaas inay dawladda Puntland maamulato oo ayadu ururiso oo analyze garayso oo go'aan ku gaarto inta ay leedahay wuxuu muhiimad u leeyahay go'aamada la xiriira dhaqaalaha horumarintiisa wuxuu muhiimad u leeyahay go'aamada la xiriira ka hortagga abaaraha iyo dhibaatooyinka la xiriira wuxuu muhiimad gaar u leeyahay dhisidda capacity-ga dawladnimada wuxuu muhiimad gaar u leeyahay bedelidda inay hay'aduhu ay gacanta ku hayaan xogtii dawladnimada u muhiimka ahayd marka runtii sida mashruucan loo qaabeeyay waa si aan aad ugu faraxsanahay in dawladdu ay noqoto mid leh lahaanshaha dhabta ah maamulkiisa iyo mustaqbalka lahaanshiisa xarig jarku wuxuu la micnayaa in wax walba hadda bilowdeen mise qorshu waa in muddo dhow bilowdo wuxuu la micnayaa in sida berrito waxaan dhagax dhigaynaa xaruntii data management xaruntii centerkii xogta lagu ururinayay center weyn ah oo buurta laga dhisto wasaaradda agtooda waxa la shaqaalaysiin doonaa shaqaalihii mashruuca waxa la keenay agabka iyo qalabka loo dhameystiri doonaa waxaan sameyn doonaa hab ay wasaaraddu u wada shaqeeyaan wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda biyaha iyo wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hadma runtii oo qayb ka ah inay markaa ka wada shaqeeyaan 3 sano ayuu soconayaa 3 sano waxa dhinac socon doonta iyadana tababaro iyo technical support ay siiyaan hay'adda FAO ay bixinayso saraakiisha EU iyo FAO ayaan arkay yaa kala qayb ka qaadanaya EU baa bixinaysa lacagta FAO baana maamulaysa lacag ahaan labadaas baa hadda qayb ka iyo dawladda Puntland oo wada aad baa